maanta oo ay bishu 17 kii May ay tahay waxa Ilaahay fadligiisa oo Ilaahay ugu mahadnaqaynaa in anagoo kala soconahay Amud Foundation aan runtii ugu deeqnay xarunta aqoonta Kaalmo ee Boorama raashin maaragtay qiimo leh aan isleenahayna muddo aan ficil doona hadii Ilaahay raali ka noqdo ujeedadaydu ma aha inaan maaragtay sheegayno raashinka laakiin waa xasuusin aan bulshada xasuusinayno in ay xaruntan iyo xarumo kale oo fara badanba oo ay ka mid tahay Gabiley Hargeysa Burco ay ummadda inay xasuustaan arabno sababtoo aqoonta ama aqoonka cid maaragtay u maqan ma jirto bulshada uu dhex joogo ayuunba maaragtay u taala hawshiisu intaas oo aqoona ayaa meeshan maaragtay ku jirta khayr Allah ka siiyo haweenkan oo maaragtay Kaalmo NGO ku bahoobay ayaa gacanta ku haya Ilaahay ka abaal mariyo maaragtay hawsha wanaagsan ay gacanta ku hayaan carruurta yaryar ilaahay badan baa la arkaa waa deeq isagoo yar oo fadhiya oo aan aad u yar yaan xarunta wax kala soo bilownay iyo degmo oo walaashiya jazaakumullahu khayr aan ducaynayna haweenka runtii gacanta ku haya carruurta yaryar wuxuu iskugu jiraa bariis daqiiq sonkor saliid caano iyo saabuun iyo waxyaalaha ay xaruntu u baahnayd haruun waxay xaruntu u baahnayd oo dhan waxay kala yihiin 2 tan oo bariisa tan daqiiqa tan sokora ana waxa weeyaan raashin 100 kiish ku dhow ama kaba badan aad iyo aad baan maaragtay Ilaahay ugu mahadnaqaynaa runtii waxaan u taaganahay caawinta dadka maaragtay tabaalaysan sida aqoonta oo kale waan u taaganaana oo daa'imana waxaan rajeynayaa inaan insha Allah heegan waxaan doono aan siina wadi doono hadii Ilaahay raali ka noqdo aad iyo aad baad u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi Ilaahay baa mahad leh waxaan u soo jeedinayaa mahad gaar ah Amud Foundation uu wakiil nooga yahay Cabdiwahaab Cige oo nala soo shaqeynay ilaa intaan cagaha isku taagnay taasay maanta noogu deeqan Amud Foundation raashin aad u dheelitiran oo buuxa oo bariis iyo daqiiq iyo sokor iyo caano iyo saamuun iyo shuuro iyo haruun ay maanta noo soo dhamaystireen awalay cagaha ugu joojiyeen Kaalmo oo naan iloobayn dhismaha haday tahay iyo dhar ciideed haday tahay iyo raashin haday tahay 3 biloodba mar ay inta in lagu keenayaan aad iyo aad baan horta ay ku mahadsan yihiin Ilaahay baana ka abaal marin hawsha ay u galeen annaka iyo dadka kaleba ee tabaalaysan waxaan leeyahay wad mahadsantihiin ummadda kalena waxaan u sheegaynaa inay sidaa oo kale u soo gargaaraan aqoontaasi maalinta wax weyne iyaga aan ugu qayno Cabdiwahaab maanta ubadkii way taagan yihiin ay qaal cid meel u kafaalo qaado meel ubadkaasi tiri ana ka mas'uulin ma jirto marka waxaan leenahay walaalayaal idinkuna saan noo ogaada Amud Foundation waan idin soo ducaynaynaa Ilaahay idinka abaal mariyo ajarkii xasanaadka Ilaahay idin saaro أجري حسنات الله يجزي واحد وأنت أوكينتين ما أنتم ما هي مركز تبصاسي وجود الإعلان ويجوش الكيان وأنا ضدك نوقف في الفرعون نوقنا بحكي نسبة عمود فوليشن اللي كنت تسوي سيرة بصاش شيء فحنا لا إلهي إنسانك حسنات كأنتي صاح حساسك وأنت المسلمين مش بنتها شوفتين إنسانك حسنات في الله هو صاروا من أول كاسو باهيجوا يعني مرة والباقي كأنتي هذا وحبرشة هذا عافمات هذا فاشين هذا مريض هاي وأنا باهيدو المرة نبض أنا دبول مينين على يحابك أنت لا أسر كذا هاي نقصيه ومركز أقول دم بيسنا معها مركز تواد لو كنتين وحنا الله مسلمين تكلم مش دونا هالشغل قالنا وذكر رسول حسيسنا رونتا وذكر ما أنت دقيقة دقيقة مضحك عنك غاية يوم معها هو ما أنت شامع هذا كدقة ومعلمين أيام الصباح يقولون لا لك حرمتن كالمو مانتا دوريات 10 سنوات 10 سنوات bay maraysaa 10 kaas sanad boqol bajiil baa ka baxay imika qaar baa dawaar tola qaar baa macallimiin oo iskuulada secondary-ga ka dhiga maxay ahayd bon qaar baa magaaladeena jooga qaar baa bijaajyale waxa leeyahay waa dadkii berita soo kacay gobolka oo wax tarayay Soomaaliland bahda saxaafadda had iyo jeer
وهذا يلا صوب عندك تا ودي مهد علنا والسلام عليكم ورحمة الله.